بسم الله الرحمن الرحيم دهور wanaagsan qodobada wararka KNN duhurnimadana waxa ugu dooran dawladda Mareykanka oo sheegtay in ciidamada Soomaaliya aanay awood u lahayn inay dalka ka saaraan al-shabaab kana hortagaan weeraradooda dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha Buulaburte iyo duqa magaalada Soomaanta ka dhacay isla Buulaburte baarlamaanka Soomaaliya oo goordhow u codeynaya xeerka matalaada caasimadda ee aqalka sare diyaargarowga munaasabadaha toddobaadka xorriyadda oo si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya oo sheegtay in si ka duwan sanadihii hore loo xusayo maalmaha xorriyadda qarax sababay dhimasho dhaawac oo maanta ka dhacay degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in lagu raad joogo Maleeshiya dilal ka geysatay deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan dibadbax looga soo horjeedo xukuumadda Puntland oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Bari xilli madaxweyne Dani uu ku wajahan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qoysas sheegay in boob lagu hayo dhulkooda oo isku soo bax ka dhigay xaafadda Hargaha iyo Saamaha ee degmada Dharkeenle ku dhawaad 40,000 oo kiiso caabuqa corona ah oo maalin qurah laga diiwaan galiyay dalka Mareykanka iyo tirada dadka ku dhintay dhulgariir ka dhacay Mexico oo sii korortay duhur wanaagsan mar kale waa Khamiis 25 bisha 6 sanada 2020 warka duhurnimo waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaala iyo Maxamed Shuuriyo Nuur Axmed Siciid Axmed ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada warkiyo dhameystiran dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliya aysan awood u lahayn inay dalka ka saaraan dagaalamayaasha al-shabaab kana hortagaan weeraro ay ka geystaan meelo kamid ah dalka Axmed Siciid Axmed ayaa warkan faahfaahinaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo saartay qoraal dheer ay uga hadlaysay xaaladda Soomaaliya wasaaradda ayaa soo hadal qaaday dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ay sheegtay in ciidamada dawladda Soomaaliya aysan awood u lahayn inay ka adkaadaan dagaalamayaasha al-shabaab ama ay kala wareegaan deegaanada haatan ay gacanta ku hayaan ee dalka ka mid ah dagaalka al-shabaab waxaa saameyn ku leh ciidamada shisheeye oo iyagana lagu wado inay dalka isaga baxaan horraanta sanadka soo aadan ee 2021 ciidamada shisheeye ee dalka ku sugan waxaa tir ahaan lagu qiyaasaa inay ku dhow yihiin 23,000 oo askari kuwaas oo badankood ka yimid wadamada qaaradda Afrika kana tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM al-shabaab oo tiradooda lagu qiyaaso ilaa 7,000 oo dagaalame ayaa weeraro joogta ah iyo bartilmaameedyo ka geysta fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM iyo sidoo kale magaalooyinka dalka qaarkood wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xog ururin ay sameysay waxa ay muujisay in al-shabaab ay ka fuliyeen in ka badan 1,000 weerar kuwaas dalka isla markaana qaarkood ay ka geysteen meelo ka baxsan Soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sanadkan oo qura al-shabaab Kenya oo diris la ah Soomaaliya ay bartilmaameedsadeen in ka badan 20 jeer warkan ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa si gaar ah wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku sheegtay in al-shabaab ay awood badan ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isla markaana dhaqaale fara badan ay helaan sanadkii waxaana warka lagu sheegay in dhaqaalaha al-shabaab ay ka helaan dhoofinta dhuxusha sharci darrada canshuurta ay ka qaataan ganacsatada iyo lacaga dibadda looga soo diro dhanka kale tan baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhow waxa uu codeynayaa xeerka matalaada caasimadda ee aqalka sare mudanayaasha baarlamaanka ayaa gaaray xarunta Villa Hargeysa halkaas oo lagu wada waqti dhow inuu kaga bilaabmo kulanka ay ugu codeynayaan xeerka matalaada caasimadda uu ku yeelanayo aqalka sare labadii maalin ee la soo dhaafay ayay mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dood kulul ka lahaayeen arintan maanta ayaana lagu wadaa in la soo afmeero dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan gudoomiyaha Buulaburte iyo duqa magaaladaas ayaa maanta la soo warinayaa inuu ka dhacay isla Buulaburte Cusmaan Aadan Careys ayaa warkan goordhow soo diray israasaasintana dhacmartay mas'uuliyiin ka tirsan degmada Buulaburte ayaa waxaa sababay muran la xiriira canshuurta yar ee laga qaado gaadiidka soo galay kuwa ka baxa degmada Buulaburte mana jirto dhimasho dhaawac ka dhalatay rasaas ay iswadaarsadeen mas'uuliyiintaasi degmada Buulaburte oo maalmihii dambeba uu dhaxeeyay khilaaf la xiriira canshuurta iyo qaabka loo qaybsanayo sida uu qadka isgaarsiinta ugu sheegay gudoomiye ku-xigeenka degmada Buulaburte dhanka maaliyadda Liibaan Cabdi Burisow
degmada buule berde ayaa ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka hiiraan goodoon ay geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab muddo ka badan 7 sano. mas-uuliyiinta maamulka degmada buule berde ayaa iminka aanan ka hadlin rasaaseynta dhex martay labada ciidan. haddaan hirshabeelle horey ugu sii soconnana qarax sababay dhimashiya dhaawac ayaa maantay ka dhacay degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe. bashiir cali daahir oo KNN uga soo warrama jowhar ayaa warkan soo diray. qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid dhulka hoostiisa la geliyey kaasoo la dhigay xerada ciidamada Amisom wadada galayso sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana lagu soo waramayaa in dad shacab ah ay khasaare ka soo gaartay miinadaasi halkaasi ka qaraxday. waxaana haatan jirta in baaritaan ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaasi ka wadaan. goobjoogo ku sugan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa ii sheegay in haatan qaraxaasi oo waxyeelo uu soo gaarsiiyay dad shacab ah oo ka dhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Mahadaay wuxuu ka dhacay oo ishay agaarka saldhigga laakiin yani wadada oo waxa waaye xerada Amisom qarax marka sidoo ku dhacay oo ishay gurigeena macnaha gabadh ku jirtay macnaha graafiye ku gaartay gabadha xataa way ka durqaneen marka magaalada halkaas gabadha hadda ku gaareen gabadha waqti wax ka gaareen oo la soo jabanta marka hadda waa la soo qaaday saa la soo haray wax ciidan ah oo meesha joogana ma laha. gabadha markuu qarax yimid oo dhaca kadib ay imaadeen ciidan qarax waa qarax muddo ka hor la soo gashay oo haddana wadaadka waxaa arkay wiil oo ishaga yani meesha oo wax ka jafayo macnaha waxa meeshaan qashinkaas ka dhaqaajiyo arkay odaygaan u wacay iyo saana wax arkay wiil odayga soo qaadi banaanka soo dhigay miina niyo ishay horta maray ku doodooned iyo ishaga bacna waa ku doodoon laakiin mara bacda ku jiriyo weli xataa wadaadka wuxuu sameeyey bacda ka fiiqay marada soo kasii u erag inay iyada tahay oo kasoo carar baawar meesha yaalo ka dhaqaajisanaya. dhinaca kale maamulka degmada Mahadaay ayaa u xaqiijiyey idaacadda kulmiye inuu qaraxaasi jiro lana dhigay wado gasha xerada Amisom ay ka degan yihiin degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Mahadaay Saalax Fuleel Xaaji ayaa sheegay in ay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi balse uu sheegay in haatan baaritaan la wado oo ku aadan sidii loo ogaan lahaa qaraxaasi cidda waxyeelada ka soo gaartay. wax dhibaato laga mashiiga laakiin farmasada ku gaaray inta baad wax iska imaanaa laakiin wadada Amisom xerada aariyso kan geedkiisa oo jidka baabuurta Amisom loo marto xaafadda waxay noqonaysaa October ay noqonaysaa oo isbitaalkana oo dhinacan ka soo jeedo oo kasoo qoyso taas waa korbataas oo balata mid laga mid ma ahayno xilmadeynayna insha Allah wixii dheeri waa la arkaa. gobolka Shabeellaha Dhexe degmooyinkiisa ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ku soo kordhayay weerarada ay dagaalamayaasha al-shabaab ka geysanayaan taasoo tiro dhowr jeer ah degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe weerar sidaan oo kale oo qaraxyo ay ka geysteen iyo sidoo kale ay dhaceen weerar toos ah ay ku qaadayaan baraha kontarool ee ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in lagu raad joogo maleeshiya dilal ka geysatay deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan. warkan waxaa faahfaahinaya Cali Cilmi Salaad. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qeybaha 27aad iyo 21aad ayaa iyaga oo iskaashanaya waxay howlgalle ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanka Jawiil iyo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. saraakiisha ciidamada howlgalka sameeyay ayaa waxay sheegeen in iyaga oo ka jawaabaya amarkii ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda 27aad waxay sheegeen in howlgalkaasi lagu sugayo amniga inta u dhaxaysa Jawiil iyo Beledweyne laguna baadigoobayo shakhsiyaad dhawaan dilal ka geysta deegaanka. taliyaha ururka 39aad ee ciidamada xoogga Maxamed Ibraahim Daawud ayaa dadka deegaanka ugu baaqay in ay nabadda qaataan lana furo isu socodka magaalada Jawiil oo maalmihii la soo dhaafay kala xirnaa. sida markay dhacaan oo kale dagaalada ama dababka kale kuwa loo xil saaray ama loo carbiyay in ay macnaha dadkaasi badbaadiyaan. meeshan waxa ka dhacday muddo laga joogo 9 bir ka hor in qof walaal leh qof kale uu ku dilo wulina waa ku rajagnaa. haddana waxaan jecelnahay inaan hawsha sii wadno. dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay horta ayaga qaataan gogosha nabadeed ee ay soo dhaweeyaan dadka u imaaday iyo dadka kale ehelka oo ka wada hadlaya arrintan. waxa kale aan u mahad celinaynaa sida noola soo dhaweey ee sharafta leh ee walaaltinimada iyo eelnimada leh ee dadkaas ay noo soo dhaweeyeen ay nooga qaadeen. waxa kale codsanaya in la furo magaalada ganacsigeed aad buu u xiran yahay magaalada
xoolo ma imaadaan qoryaha kuwa layidhahdo qudul daruuri oo dhan way xiran yahay magaalada waxaan ka codsanaynaa inay furaan si ay nabadda ugu soo dabaalaan dagaal wiil kuma dhasha wiilaa ku dhinta taliyaha guutada shanaad ee qaybta 27aad ee ciidamada xoogga maxamed cabdi xasan ayaa sheegay in ciidamada ay wax ka qabanayaan falalka amni darro ee ku soo laabtay deegaanka in fal ka dhacay 9 maalmood ka hor in aan wax ka qabanno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad qaybta 27aad waxay hadda goororo u taagan yihiin sida ay shacabka dagaalada qabaa'ilada socda ay u faafin in u soo afjaraan kaliya kuma eka in ay cadowga shabaab bis la dagaalamaan waxay mar walba diyaar u yihiin in ay dhiigooda naftooda iyo maalkooda u huraano maalin waxa ogtiin dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo sheek baanyaalay kaalinta ay ka qaateen ciidamada 12aad iyo 17aad oo iskaashanaya dagaallo iyo dilal qorsheysan oo salka ku haya aanooyin qabiil ayaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Jawiil waxaana dagaaladaasi ku nafweeyay dhinacyadii dirtu ay ka dhaxaysay iyo waliba dad rayid ah oo aan waxba galabsan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray Villa Hargeysa waxa ay ku waramayaan in iminka uu furmay fadhiga baarlamaanka iyada oo la guda galay dooda la xiriirta matalaadda ay yeelanayso caasimadda waxaana intaa kadib lagu wadaa in mudanayaasha baarlamaanka ay arintaasi cod u qaadaan wixii kale warar ay ka soo kordha hadduu rabbi idmo wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan iminkana wararka dibadda khasaare ayaa ka dhashay dhulgariir ka dhacay dalka Mexico waxaa la soo warinayaa in uu sii kordhay iyadoo dhulgariirka uu ka dhacay koonfurta dalka Mexico sida ay sheegayaan wararka tirada dhimashada ayaa iminka gaartay ilaa 10 ruux cabirka dhulgariirka ayaa ahaa 7.4 marka loo eego hanaanka dhulgariirada lagu cabiro iyada oo sidoo kale dhulgariirkan uu markaasi khasaare u geystay dhismooyin badan oo halkaasi ku yaala kumanaan ruux ayaa la soo sheegayaa in guryahooda ay isaga barakaceen in dhulgariir kan lamida uu ka dhaco Mexico waxa ugu dambeysay sanadka markuu ahaa 2017 amal ugu dambeynna gobollo badan oo dalka Mareykanka ka tirsan ayaa wali u muuqda kuwa wali uu sii kordhayo kiisaska caabuqa ee COVID-19 in ka badan 5 gobol oo ka tirsan Mareykanka sida Texas, Florida iyo California ayaa laga diiwaan galiyay kiisas aad u badan 24 saac ee la soo dhaafay Mareykanka oo idil waxa laga diiwaan galiyay waa ku dhawaad 40,000 oo kiis guud ahaan tirada kiisaska caalamka ayaa la filayaa in toddobaadka soo aadan caalamka oo idil ay gaaraan 10 milyan oo kiis sida ay ku waramayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kiisaska caalamka ayaa haatan maraya 9.4 milyan oo kiis tirada ka bogsatay ayaa sidoo kale ka badan 4.7 milyan halka dhimashaduna ay ka badan tahay 4,802 ruux Audio Jungle.